أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذن سلام يا دمان دادك كحيران برنامج ذا وأنيقو MMS هنو هذا الماها هم بررسي أرق ماها هنو هذا الماها هم بررسي أرق ماها بوم أهدنا بوم بم ببرتين بالها لسكرفايا. وان سلام يا دمان صباح وناكسن صباح الخير good morning ميل والبد جوجتان لوقدات هذا الشان هدان كو شيغي لها وان إذين شيغي لها لكن ساكا وحان برنامج ذا أيهين أوغيسيس MMS وهو يدا كلية السوشيال ميديا وصوغشة victimka dulmanaha dhibaatada inta la soo dhibaateeyay haddana again and again loogu wado dhibaatada loogu wado. waxaan rabaa inaan idiin sheego horta hore Soomaali haddaynu nahay horta anigu Soomaali inaan idin la'ahay xataa shaki baa iiga jira laakiin wax yar baa ii haray inta shakigaas iga bixi lahaa. luqadda waan ku hadli doonaa ama waan bedelan doonaa. language is a language. waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaa social media yaacaya oo la ii soo diray ama aan orodkeeda arkayay in YouTube-ka la rabo in la xiro. adeer YouTube-kii barwaaqo ahaa barwaaqo kan waa maskiin baa la xira. reasonka loo xirayna waxyaalo badan baana ka sheegin oo aan ka aamusnaa. qofkii barnaamijkayga daawada please subscribe ii saar. waxaa loo xiray YouTube-kayga horta hore nimanka Soomaaliyeed waa group oo israaceen. faarax inki baan u bixinaa anagu marka dad badan baa waxay dhahaan faarax inki waa maxay. faarax inki waa group nimanka Soomaaliyeed kuwa wadankii qarxinaya oo gabdhaha haddii la kufsado aan ka hadlayn oo qaarkood gabdhaha kufsanayaan oo qaarkood dawladda dabada ka laalaada oo qaarkood caruurta iyo dumarkoodii dayacay oo wax walba bale haddana isku difaaca as a group. horta way nimanka Soomaaliyeed MMS baa idiin soo hartay. anigu YouTuber baan ahaa. YouTube-kaygu America ka register garaysan yahay kii horena uu ka register garaysnaa. in badan baan waxaan idiin sheegay in aan markii hore aan xanuunsanaa oo aanan waxyaalo badan oo raydkayga aan raadsan karin. means xanuun dhulka aan aalay ma lahayn laakiin jin baa i hayay ama rumay ama ha rumaynin. jinkii hadda waa iska soo caafimaadiyey. waxaa maalmahan yaacaysa oo aan maalmahan aad u arkaa in la iigu dhaaranayo YouTube-ka lagaa xiraya. horta hore waxaan rabaa inaan idiin sheego anigu YouTube-kayga laaluush ku bixin maayo. siilkayga iyo shilinkayga ku bixin maayo laaluush. anaa iskale siilkayga. waxaad rabtaana Somali man, you understand? my pussy is my pussy and my money is my money. I cannot give you because waxaad rabtaa inaan inta siilkayga ku siiyo ama shilin laaluusha ku siiyo inaan ku dhaho YouTube-ka iida ama ay salaaxdid. no gabdhaha Soomaaliyeed oo social media YouTube-yada ku leh waa gabdhaha siilkooda lagu haysto torture-ka loogu haysto. tusaale gabadha aan ka hadlayo Kenya oo ninka naagta la ku xareysatay. reasonka ragga isugu lisaayaan rag ma rabaan hadday rabaan feeling ma lahan hadday rabaan laakiin waxay ka baqayaan nin Soomaali wuxuu rabaa inaan siilkayaga laaluush u siino. hello America, this is the flat. it's a woman flat. yes we can. siilkayga ma diidi karaa? yes we can. shilinkayga ma diidi karaa? yes we can. money is my money. my pussy is my pussy. I can give you for free because you need to harassment to me and you close my YouTube. I don't care if you close or if you not, it's up to you. But it's not one person only. A lot of people ba is hide garaynaya marka musqulaha soo butaacaya. musqusha butaacaysay soo dirsadaan laakiin Somali ladies waxaan idin sheegaya siilkiina for free loo isticmaalaa.
that's why baa waxaa la rabaa inaan meel walba siilkeena ku marno madax haddaynu rabno soomaaliya inaynu ka noqono waa is ogtihiin intiina madaxda ah silkiinaad ku martaan iyo shilinkiina soo maha carwaa beentaa dhaha xildhibaan haddaad tahay siilkaaga iyo shilinkaagaad ku martaa haasaa lagu salaaxaa adigoon raalli ka ahayn adeer America if I say no don't touch me if I say don't touch me means don't touch me means I'm expensive I am not a cheap I am not a cheap I'm not a material I'm a human being YouTube yeah it's my YouTube my mouth is my mouth but if you torture for me if you do not go this way I can close you YouTube excuse me we will see YouTube yadayda kii hore waa la xira okay anigoo waxay iga qaldanaayeen anigoo yaabay in saas la ii xumayn kara ka yaabay waxba aniga shaar ha ii soo gashanina adigoo wahaabi ah adigoo nin ah adigoo intaqaanay aan xishoonaynin adigoo undercover adoo lacag haysta adigoo dad soo dirsanaya waxba aan aniga undercover haysan laakiin waxaan ku sheegayaa inaan silkaygana ku siinaynin shilinkaygana ku siinaynin waa kulligood oo dhan non one person inuu yahay waa isku xiran yihiin waa Faarax Inc waa corporate Somali man is a corporate because Somali country you know 30 years intaqaanay dagaalka ma socdeen if Somali men if they don't have a you know corporate that's why ayaga is support gareeya ayaga is support gareeya they know Al-Shabaab they know ISIS they know mataqaanay Daesh they know everything but they hiding for each other that's why they wanted whatever people if they don't accept that they attack them Somali man is you do not attack me you did and you did and you did but waxaa idin sheegayaa let me tell you something ajaladan waa la turjumayaa America loo turjumayaa ko ha moodinina because slavery baa nagu haysataan inaanan right lahayn inaanan speak lahayn inaanan mouth lahayn inaanan ka hadli karin waxa jira adeer nimanka gabdhaha yararka hadda kufsanaya waa Somalian gays oo baqaya because waxay rabaan virgin bay raadinayaan so dabada raggu waa virgin waxay dabada ka cunaan bay rabaan soo naagaha iyagaana markii horena waana la gudayo candadii hoosaana laga xoqa markii dambana 10 carruurna laga dhalayo siilkii baa qaaqina noqday soo maxay raadinayaan virgin bay raadinayaan soo maxaa virgina gabdhaha yararka baa virgina Somali waans waxay raadinayaan virgin because dabada iska cunaan Europe baa joogtaan idinkoo allaat ah waa ila hadasheen you know what I'm saying waa ila hadasheen idinka ay soo doonto ii sheegay in abtigaa ku soo fuulay in adeerkaa ku soo fuulay but I agree with you inaad baqdid aku garaabaya inaad baqaysid laakiin this moment wax laga baqa ma yaalaan laakiin waxaan ku sheegayaa wherever you choose nobody ha uga baqin but aniga wherever you are I can support you as a human being ahaan I don't care sheekh baa inta ku jira iyo masaajid baa inta laga yiri iyo I don't care ninka wax qarxinaya adeer masaajidku ka soo baxaa believe or not where he come from Mask the guy he is fired in Somalia where he come from he coming from Mask and Mask is the the home is Allah it's not the place let's go hire gareeyo believe or not I cannot give you for free my pussy I cannot give you for free my money because I am afraid you close my YouTube do with whatever you like it but I cannot give you my pussy I cannot give you I don't care if I'm grandma I don't care if I'm mother if I don't care but I tell the truth but if you are women if you see whatever I can see let me know we coming together and we gathering and we talk each other and we tell the government what is going on. What is going on? They support each other. Ninka guska saa ka siinayay bay support garaynayaan. No. He have his own choice. And he is whatever he is. Because his choice. Because he afraid for you. That's why he hiring his staff. But you know what I mean? My pussy, it's not for free.
I cannot give you for free. I don't care if you are Daesh. I don't care if you are other one. I don't care if you are, go other mosque. I don't care if you Sheikh Hebel. I don't care if you, the politics man. I don't care. I am beautiful. That's why you need it. I close my YouTube, whole YouTube. Otherwise, she do it. I can say whatever I wanted. You do not control my mouth. You do not control my mouth. And you do not abuse the women in America. I live here. I'm American citizen. And I'm the woman. You know what I mean? We will see. We will see. You can call my number. Or you're going to have a right for different number. A lot of Google number. You can try, you call me. And you write the papers. And you do whatever you like now. We will see. We will see. Today is a Sunday. We will see tomorrow. We will see tomorrow. Farh Inc. I can talking about whatever I can see. Whatever I can hear. I can talking about. But my pussy is mine. I cannot give you for free. My money is my money. You do not torture for me. YouTube is my YouTube. Name is my name. Picture is my picture. Video is my video. You're gonna put in everywhere my videos, my pictures, my names. Is that right? Is that right? No, it's not a right. It is not a right. Whatever Somali man they could do it, it's not a right. You harassment to the women. And you know each other, Somali Farh Inc. But we will see. If you're watching my video, subscribe me. I'm not afraid. I am not afraid. I am not afraid. But I can fight for my mouth. And I can go to the government. And I can tell them, I am the victim woman. And I telling you, and you harassment to me 2 years above. That is not right. And every single day, we can see Somali young girls, you do sexual harassment. And they did before for Somali men. Am I right? Farh Inc. You have to stop. You have to stop your dick. You're gonna put in every young girls. Stop. Stop. Stop harassment to the MMS. Stop harassment to the women. Stop, killing your wife and your mother and your sister and your Somalian women and other women, other country. Some young man, he killed Somali, the white girl and his wife. And he have his son and he carry his son. If you kill your wife, why you carry your son? Because your son doesn't want you. He doesn't want you. And God bless America. They find him for him. And I hope he stayed in jail for life. And the other guy, he killed his wife and he ran away. And American, they find him for him. God bless America. Because we don't have anything respect to me. Just American people, they watching Somalian women. We are alone. And where's America? Thank you, guys. Let me tell you something. We can fight. I see Nairobi, I see Kenya, some women they got a lot of problem. And they go to a small town. And now a lot of people, they go there because they take decision. And her town, any man, they don't go there. That's what I'm planning. I am planning my own, we own city. And we don't need any man to come in that city. Stop Farh Inc. Stop Farh Inc. harassment to them. American people now, they watching you. They see you. And we are tired. 30 years we are a civil worker. All you distribute my life. And all the women life. And the children life. And the country. And everything. And still you need it every day. You're gonna close my YouTube. You think so? A small one, he can close my YouTube? No. A lot of men they are group. It's a Farh Inc.
Thank you very much for you watching my channel, and thank you. A lot of people, they gonna support me. A lot of men, they understand what I'm talking about. They support me. All Farah Inki is a bad people, but some Somalian guy is a Farah, but still they don't talking about. They don't need it for they helping the women. Anyway, subscribe me and thumb up please my channel. Thank you very much. Why are you jealous? Because every time, as you can see, my subscribe is going up. You know, a lot of views my YouTube. That's why you jealous, Somali man, right? Still you having my videos, and still you jealous, right? Still you see that my subscribe and how many people they watching me. That's why you jealous. Why you jealous? Why you jealous, guys? You have to be speaking up and tell the truth. And tell the truth. I can tell the truth. That's why people love me. Thank you, whatever people love me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.